dad badan mudane aadan raalli waa kaa dhexgalay dad badan waxay tan iyo shalay social mediaha isku dhex wadaan oo ONLF inay samaysay arrin aan marraba laga filanayn oo ah dad dhul Soomaaliyeed inay u aqoonsatay in uu yahay dhul ay leedahay canfarto gaar ahaan gobolka city deegaano ka mid ah arrinta noocaas ah maxaad adigu kaga jawaabi lahayd ma dhul uma aqoonsanayso inay u dagaalanto xaqa dadka Soomaalida dhulkooda inay soo celiso mooyaan uma aqoonsanayso waxa laga yaabaa tashwiishku inuu ka yimid marka la register gareynayo xisbiga xubno oo aan la fahayaa ka soo galaya oo iska sharaxi doona gobolka canfarta inay u qaateen inay tahay dhul Soomaaliyeed baa loo aqoonsaday inay canfar galeen baa laga yaabaa inay tashwiish ka yimid taana waan faahfaahin waxa weeye Addis Ababa inay iska sharaxi karto oo aan la dad bay ka heshay Soomaali ah oo taagan oo yiri annaga Soomaali oo degan oo duriye kule oo dhul kule oo shaqo ka haysana oo sharaxi karayna Oromo way ka heshay Dirdhaba way ka heshay Cafarna way ka heshay dadkii noocaas macnaheedu ma noqonayso dadka ay hadii baarlamaanka ku guuleystaan oo soo galaan iyagoo Cafar ah ama Soomaali Cafar degan ah macnaheedu gobolada Cafartu ka haysato Soomaalida way u doodi oo iyaga soo celin karaya waa dhinaca kale mooyee dhinaca u turjumeen mooyee dhinaca kale way arrintu laakiin uma aqoonsanayso Soomaalida Cafar inay dhul ay u aqoonsato ay Soomaali leedahay inay Cafar yihiin oo ka soo galaysaa ma marka waxay ka dhigan tahay maadaama oo ONLF ay Oromia iyo Canfar iyo Herar iyo Diridhaba iyo Addis Ababa intaba ay ka heshay codadkii kofila ay shuruudahooda buuxiyay dadkii cadeeyay candhuufi iyo deegaanka joogay ONLF mayna canfarayn baad leedahay dadka intooda badan saa isku celcelinayaan dadkaas la canfareeyay oo warqad leedahay halka hal fortemba baxdin ba yamba qulubka malaha ku qaateen baan u maleynayaa sidaa ma aha haba yaraatee dhul Soomaali leedahay ma canfarayn karto mana canfaraynayaan istaraatiijiyadoodu uma jirto hal taako oo dhul Soomaaliyeed in dad kala siiso waliba labada dariska in la Oromo iyo Cafar ay siiso taa iska badaaye sidii 13 degme ee xuduudiyada Oromo iyo Cafar u dhaxeeya loo soo celin lahaa ayaa gudiyo loo sameeyay oo ku taamaysa inay samayso mana dhacayso sidaa ma aha وهاجاك أنا